بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد الله بان mahad iskale subxaanaه watacaala inoo fududeeyey barnaamijkan walaalayaal waxaa halkan aan idinka soo gudbinaynaa baaqaasoo ku saabsan dhammaystirka garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle oo baryahanba socday kaasoo u baahan taageeradiina meel aad joogtaanba walaalayaal saad ogtihiinba airportka waxaa la keenay qalabkii lagu dhammaystiri lahaa waxaa la diyaariyey shaqaalihii waxaa loo baahan yahay dhaqaalahaas oo u baahan inaynu isugu tagno walaalayaal haddii aan muhiimadda garoonka isu sheegno waa mid aad ka wada dheragsan tihiin waxaa weeye garoonkaas dadka deegaanka degan oo dhan ee Soomaaliyeed kuwa gobolka Cayn degan iyo kuwa dariska la ah dhammaan ayaa isticmaalaya saad ogtihiin bana airportyada iyo dekadaha waa hanti dawladeed waa qaranka Soomaaliyeed oo dhan baa leh shacabka Soomaaliyeed oo dhan baa leh wax la kala xiga maaha waxaan marka ka codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba gaar ahaan kuwa deegaanka u dhashay inay ka qayb qaataan dhammaystirkiisa insha Allah oo aynu isugu tagno marka waxaa loo baahan yahay inaynu dhaqaalaha ilaa 170,000 ayaa ku baxaysa sida injineeradu sheegeen marka waxaa loo baahan yahay in aynu ka qayb qaadano haddii Allah idmo oo aynu isugu wada tagno oo qof walba meel kasta aad joogto inaad ka qayb qaadato marka walaalayaal naqshadda halka idinka muuqata waa garoonka naqshadiisii halkaas aad hadda aragtaan waa meesha diyaaraddu ay lugaha dhiganayso caga dhiganayso halkaasina waa meesha ay ku ordayso halkani waa terminaalkii dadka baxaya iyo dadka soo degaya ay isku daba mari lahaayeen halkaasi waa xafiisyo halkaasina waa xafiisyo masaajid baa halkaas kaga yaal oo dadka muslimiinta ee imamanaya loogu talagalay halkanna laba musqulood baa ah oo ragga iyo dumarka loogu talagalay marka walaalayaal saasuu noqonayaa airportku naqshadiisu oo muxuu ahaayey taasna waxay ku suurtoobi doontaa insha Allah ilaahay ha suurtageliye marka aynu isugu tagno oo aynu inagoo wada jir ah dhaqaalihiisa bixino marka walaalayaal waxaa weeye baaqaas waxuu ku socdaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dadka khayrka jecel iyo dadka horumarka Soomaaliya jecel garoonka diyaaradihii wuxuu ka mid noqon doonaa oo uu ku biiri doonaa liiska garoomada diyaaradaha ee wadanka Soomaaliya marka insha Allah saad aragteen bana muxuu ahaayey waa cagaftii u horeysay way timi cagaftii oo maalinka maanta oo 8 bishii February 2014 muxuu ahaayey cagaftii wataas oo dhex qulqulaysa garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle marka walaalayaal cagafyadaas iyo shaqaalahaas iyo waxaasoo baabuura waxay u baahan yihiin dhaqaale waxaa loo baahan yahay dhaqaalihii inaynu inaguna ku tabarucno dadka gudaha jooga ee Soomaaliya iyo deegaanka gobolka Cayn degan waxaan u soo jeedinayaa inay dhammaantood ka qayb qaataan sababtoo garoonkoodii weeye waa in reer walba uu bixiyaa neef oo ugu yaraan neef bixiyaa qurba joogtuna magaalo kasta ay joogaan iyo meel kasta ay joogaanba inay ka qayb qaataan 170,000 ma yara waa lacag u baahan inaynu haddayse aynu ururino oo qof walba ka qayb qaato waa wax yar runtiina garoonka ilaa intaa in la eg ba hore ugu baxday oo garoonku waa dhammaystirkiisii waa dadkii maanta halkaa kaga qayb galay muxuu ahaayey farxadda iyo soo dhoweynta macdaadkii ka qayb gaalina dhammaystirka marka waxaan leenahay arrintani arrin siyaasadeed maaha waa arrin horumar waa arrin u baahan in dhammaan aynu ka qayb qaadano oo aynu iska kaashano marka walaalayaal waxaa weeye ummadda Soomaaliyeed horumarka jecel waxaan leenahay gudiyada
iyo dadka loogu talagalay ee goboladiina jooga ee riboodka u ururinaya garoonka diyaarada ee Buuhoodle dhaqaalaha u ururin la xidhiidha sida ugu dhaqsaha badan oo gaadhsiiya macaawimadiina waxa weeye garoonkaasna waxa weeye ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto baa wax ku leh wax dad gaari leeyahay maaha marka waxaan ku boorinaynaa dadku inay ka qayb qaataan insha Allah waxa weeye ballanteenu waa hadal yar hawl badan insha Allah biidnillah kariim marka hadda waxaan xoogaa idin daynayaa inaad daawataan bal cagaftii oo garoonkii xaaqaysa oo muxuu ahaa dadkii shacabkii gobolkuna ay aada ugu faraxsan yihiin inay arkaan garoonkii muxuu ahaa gobolkooda ku yaalay oo shaqadiisii socoto oo taasoo muddo dheer la sugayay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in ilaahay noo saamaxo inaynu dhammaystirno garoonkaas waa garoon Soomaaliyeed waa wadankii Soomaaliya ku yaala koonfur iyo waqooyi iyo muxuu ahay galbeed midna lagama xigo ka qayb qaata walaalayaal garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle insha Allah saas ay noo ballana haddii Allah idmo ballanteenu waxa weeye waa waxqabad iyo horumar iyo iskaashi insha Allah haddii Allah idmo marka walaalayaal dadka guddiga ah ee howlwadeennadana waxaan ku boorinayaa inay habeen iyo maalinba u soo jeedaan dhammaystirka garoonka oo aysan seexan ilaa garoonkaasi dhammaado oo diyaaraduhu ka soo degaan oo ka duulaan sababtoo ah soo jeedkoodu iyo shaqadoodu waa muhim waana horumarkooda iyo deegaankeenna oo muxuu ahaay horumar gaadha iyo dalka Soomaaliya oo horumar gaadha waxa weeye Soomaalidu waxay ku mahmaadaa cidna uma maqna ceelno uma qodna waxa la sugayaa waa idinka dhammaanteen guda iyo dabadba ballanta muddada cagafyada iyo injineerku joogaan waa muddo kooban oo 2 bilood aan ka badnayn ama aan idhaahdo ilaa 3 bilood ugu badnaan marka waxaa loo baahan yahay muddadaas cagafyada iyo injineerku joogaan inaynu inaguna ka qayb qaadano dhiirigelinta iyo bixinta lacagta iyo muxuu ahaayay soo jeedka shaqada ee riboodka waa inaynu noqonaa nin qof ururiya lacagta oo haddana bixiya iyo mid garoonka taagan oo ka qayb qaadanaya waxaan shacabka Buuhoodle ku boorinayaa inay iskaaxo qabso ugu soo baxaan garoonka sababtoo garoonku waa garoonkoodii waa riboodkoodii cidi kama xigto iyaga ka faa'iidaya iyo dadka kale ee dariska la ah marka waxa weeye ay u guntadaan oo fadhiga ka kacaan oo u jarmaadaan oo gabalku ugu dhaco say u shaqaynayaan insha Allah saasaan rajaynaa dadka qurba joogtana waxaan leeyahay ururinta dhaqaalaha iyo wacyigelinta ka daalina saas ay noo ballana garoonkiina waxa weeye insha Allah way noo dhamaanayaa dhaqso inoogu dhamaanayaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu inoo dhammaystiro naqshadiisii haddaan dib idinku celiyana oo taas waxa weeye ranweygii iyo muxuu ahaayey iyo xafiisyadii iyo taawarkiina wuxuu ku yaalaa muxuu ahaayey isla dhismaha korkiisa ayaa laga taagaya haddii alla idmo marka ha u dayma la'aan insha Allah waxaan rajaynaynaa dhaqso inuu u dhammaado oo aad aragtaan garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle oo diyaaraduhu ka degayaan oo ay muxuu ahaayey ka duulayaan isagoo sidaasa oo sidaa u qurux badan oo diyaaradaha waaweyn insha Allah mustaqbalkan rajaynaynaa Buuhoodle International Airport website-kaasu leeyahay u dayma la'aan airport.buuhoodle.com halkaasaad kala soconaysaan insha Allah wixii warara ku soo kordha garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle ballanteenu waa waxqabad iyo shaqo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu